والله حالي مصيحة والله هالعظيم أنا حالي السياحة هذيك حاليها انتهى كسو جدا markii la yiri inaga wax la inoo saxeexayba ma jiraan kayana qaadkii baa loo saxeexay loo soo daayay yaalo haleekeeno farmaajo oo qof ku dhigan haleekeenaani farmaajo oo qof af ku taagay haleekeeno meeshaan adeer muuqaal badan xareysan social media muuqaal badan ku jirto qofku wadaniga waxa lagu yaqaan inuusan ku dhigin shakhsi uusan ku dhig hadlin adeer ama magaciisa uusan soo qaadanin qofka wadaniga waxa lagu yaqaan dalka wixii ka qaldan uu sheegaa wixii nidaamsan uu sheegaa adeer waxa waay meeshan qabyaalad durkiisa ma jirto CBB xaq ku tuura dadka farmaajo taageero maanta CBB loo yaqaano yani dadaa jirto marka oo waxa waay taageere oo hadeertan isla taageere MBB loo yaqaan adeer yaan been isku sheegin farmaajo dalkan wax badan oo qabtay maamadan hadalkeeda ila maqla ila dhageysta maamadan wallahi waxay ka sheekeynayso boqolkiiba boqol been maan adeer dhageysta qaadka Kenya is afkaradka laga gaaray anigu marka qaadka kaliya laga hadlayo qaadku ma ahayn ma xirinin hal shakhsi oo aabihii la dilay shakhsi hooyadii la dilay shakhsi walaalkii la dilay shakhsi dakana gaara Kenya kula qaadka ma xirin waxa inay shakhsi u daneynaya ummadda Soomaaliyeed sababaha uu ku xirayna ay ahayd inaan daba dawladooda simaana aan wax isdhaafsano xasan wuxuu ku baxayaa meesha la yiraahdo Kenya horta Kenya anigu maba qababa xiriir halala sameey hatta haduu qof kale yimaado sababtoo qaad bayna ku soo daldalaysaa madaxweyne kasta wuxuu leeyahay kalluun halagay oo kalluunka hadda Kenya miyaysan naga guran wayada badeena noo xukumay haysatee walaalayaal maxaa la isu indhatiraya kalluun intii la doono bay jariifanaysaa oo xaasidnimo waxa weeye u isticmaalaysaa kalluunkeena marka waxaan qabaa madaxweyne xasan inuu ka digtoonaado arrintaas waa arrin qarannimada dhaawac ku keenaysa iyo Soomaalinimada in maalin kasta loo dhaho kalluun halagayo annagana maalintiina la ka faa'iido 200 milyan wax iskeenaysa maaha waxaana filayaa inuu ka baaqsan doono sababtoo ah ninka uu hadda u socdo waa nin sida uu aftaag sheegay uga dhiman tahay xilkiisa afras buu laakiin hadduu aado waxa weeye timir lafda ku jira wax kala loo sheegay ma waa ka baxay laakiin waxaan ku soo gabagabeynayaa safarada xasan mid waxba laga faa'iiday laakiin inta kale wax laga ma faa'iido daan runta ka wada hadalno qaar waa kuwa isbariyeelayo qaarna waa kuwa uu dadkii ku dadaalay xilka soo saarsaday uu tagay oo mashxarad la doontay anigu waxaan ka jeclaa safaradiisa inuu horta bal marka hore dawladdiisa dhisto markuu dawladda dhiso wax walba waxa ka muhiimsan dalka in marka hore dalkeena spacekiisa hoose la dhiso kadibna meelaha daadku inagaga imanayo la iska mooso meelaha aan jeclaa inuu ka bilaabo waxay ahayd Ethiopia sababtu tahay Ethiopiyada xuduud dheer baynu la leenahay inta maamul goboleeda ee ka samaysan Soomaaliya kulli xad bay la wada leeyihiin Somaliland Puntland maxaan ku idhaahdaay Galmudug Hirshabeelle maxaan ku idhaahdaa سفرات بدنا حسن الشيخ محمود محا إلى هذا سوكر ديان عوان آد ونكسن رنتي ويه هيك ما إن سبيس كستلاس قالوا سبيس كمركز جلسوا عوان كانوا سوتشي توي وواحد آد ونكسن ويه إن لقى هذلو حسن الشيخ محمود هذا سفرات أوجري لما أنتود خرج باكو بحي ملايين تذكرني واقعتشون يا وسفر وح الله وحي سوكر لنا يا أنا كرين actually safarada oo galay wadankeena ilhaan ay soo kordhiyeen qaarkood ama intooda badan lacag baa la kharash garanayaa fara badan dadkii baa abaar haysaa waxa weeye macluumaad baa jirta waxa jira sixir barar baa jira gurihii wasiirada lama soo magacaabin diyaarad buu saa u saanay waa dhaqan u lahaan jiray oo hadda siilaba jibaarmay
haddii 40 maalmood gudahood uu 6 safar dibad iyo gudaha galay markaa imisa haray safar 400 safar soo maaha anigu waxaan aaminsanahay runtii in waddankeenu maanta uusan qaadin ilaa xukuumad la soo dhiso xukuumaddu ayadu safar samayso wasiirka arrimaha dibaddu meelaha soo marmaro in madaxweynihii waddanku uu waxa weeye diyaarad un saaraado ma ogtiin kharashaad ku baxa madaxweynaha Mareykanka adduunka ku baxa waddanka joonaya oo silcaya oo dadkiisi baahan yihiin oo biiraan yihiin in 40 maalmood gudahood 6 safar uu sameeyo madaxweynihii waddankaasi anigu waxaan u arkaa wax runtii aad looga naxo waa wax runtii anigu waan arkay laakiin cid ka hadlaysaan waay oo arki waay mawduuc aad wanaagsan weey waxaa la sheegayaa 7 cisho soo socota inuu u safrayo dhowr wadan oo kale lacagtan uu ku safrayo kharashaadkan uu burburinayo waxaan xagee uu ka keenayaa miyaan ku wanaagsanayn inuu dadka masaakiinta ah gaajoonayo iska daa wax kale filla Soomaaliya qaarkood u jiraan wax ka yar 1 kiiloomitir inuu biyo iyo u siiyo waddanka sixir bararka adduunka annagoo iminka Ameerika joogna baa sixir bararka yaaban inflation heerku maray Soomaaliya waa sidoo kale ka badaran ganacsatada waxaa joogta marna xayaala oo markay maqlaan sixirkiiba iyo gaaskiiba qaali garoobay 4 jibaar saaraya waxa weeye maciishadii war anigu waxaan isleeyahay meelahaas kaga haboonayd kharashka waxa weeye uu ninkaasi ku safrayo intaasaan ku soo gabagabeynaya dhex mari kara labada qof hadda maxay tahay waa dawlad sii dhacaysa iyo dawlad cusub waxa muuqda waxyaabo badan oo faashil ah muuqda ila alaanka maanta waxa weeye 52 days bay maanta tahay haddana 53 ahayn wasiirka koowaad waa magacaaban wasiiradii kale lama soo dhamaystirin كل واحد قبانو أفرتها صنع نوع كوشرين أفرتها صنع حسن شغمشة في الديو إنه نوع كوشرين قبانو وحنا عن كلا سعونين أما حكي هذا يسوق قبوا وحي أنا فهنسنين أنا مش دولة دي كوشرين تهلس كي يعاون نوع عضها يولال أوكي أوكي سفير وقفان وصو دوت بحث سما waxaan inii sheegayaa qof walbaaba waxa uu xor yahay afkaartiisa iyo aragtidiisa inuu cabiro qof lagu caburinayo ma jiro laakiin waqtiga bas inoo soo kooba muxaafid ahaw mucaarad ahaw waxa weeye moderate ahaw afkaartaada cid laguma caburinayso laakiin waqtiga inoo soo kooba mayga iniga iskale aniga inigama soo dhexgelayo codkan baan inii qaybinayaa dooda waxaan meesha u saarnayna wax la isweydiinayo inay tahay bay muhiim yani wax la isweydiiyay inay tahay ayaanu aragnay oo waxyaabaha shacabka Soomaaliyeed hadaysa isweydiinin wax reality-ga wax badan ba dayacmaya marka anaga su'aasha waxaan u keenayna waxa weeye safarka ma laga maarmi karin mise waa laga mise muhiim buu ahaayo ajendayaal waaweyn lagu soo guuleystay oo waxa weeye dalka waxba loogu soo taray intaas weeye su'aasha meesha taala waa laga wada dhawaajiyay madaxweynaha safaradiisa madaxweynaha marka asaga la doortay 30 bari uu haystay ra'iisul wasaare inuu ku magacaabo ra'iisul wasaare waa soo magacaabay ra'iisul wasaaruna 30 days buu haystaa maaragtay waxa waaye inuu soo magacaabo xukuumad soo marka always safarada marka madaxweynuhu uu baxaayo madaxweynuhu saas sheegteen ba mid ma ahan ummadaha kaleeto muxtaar baa ka dhawaajiyay qarashka expense iyo costiga waxa ku baxaya haddana saas ay tahay markuu madaxweynuhu uu safraayo madaxweynuhu waa ilaaliyaha qaranka dastuurka iyo dalka mataqaan shuruucda waddanka haddana saas tahay waxa looga baahan in mataqaan golihiisa wasiirada ama arrimo dibadeed ha ahaado haddii laga soo hadlaayo ama arrimo maaragtay muxuu ahaa amni ha ahaato ama arrimo in maaragtay golihii wasiirada oo shaqooyinkaas ku lahaa maaragtay inuu la socdo hadda safarkii Turkiga oo kaleeto dad aan xilal hayn oo garowa online mataqaana nala fadhiyay laakiin dawladdiisa hore wasiir ka noqday baa la socday taamiins waxay ku tusaysaa intii qof Soomaali oo qaranka u shaqeynaya oo xil oo wasiir ah qarashka lagu bixin lahaa yaa inay maaragtay waxa waaye ka haboon qofka lagu bixiyo inay ka haboonaan lahayd qof noocaas maaragtay oo xil wasiir ah markaan waxaan ilaa safarada madaxweyne horta aad buu qaarkood ugu degdegay hadda electric oo kale to maaragtay la filayay shacabku waxay sugayeen in madaxweynuhu uu hadlo
wixii propagandada ahayn ummadda maartay si niyad degan oo la hadlo wuu tagay madaxweynuhu soo noqday waxa waaye kulay shalay waan arkeen dad yar oo group maartay la kulmay ilaa hadda wuxuu meesha kala soo kulay madaxweynuhu si fiican shacabka muxuu galama hadlin marka waxaan dhihi lahaa aniga waxa waaye safarka hadda Kenya oo kaleeto Kenya xilli kala guuray muxuu ahaa bay ku jirtaa Kenya bisha hadda soo socota 9keeda la dooranaya election already ninkan waa dardaarmay safiiradii uu la kulmay maalinka dhaweedna wad arkayseen meel ku dhimay Soomaaliland buu ku casuumay marka horta ma hubo inuu aaday hadda anigu mar dhow wili carada aad uma fiirfiin laakiin waan maqlay safar Kenya inuu madaxweynuhu ku baxay haduu ku baxay ama uu balan gareynayo waa safar laga baaqsan karo oo dawladda cusub oo Soomaaliya inay maartay wax aad bay maartay u wanaagsanaan lahayd Kenya waagii Xasan Sheekh Maxamuud horena waa la ogaa haddana Farmaajo waa la ogaa heshiisyada ay galeen labadoodii midna waxba kama caana casaan marka madaxweynuhu inuu golaha wasiirada yani muxuu ahaa ra'iisul wasaaruhu soo dhiso ka bacdina wasiirkii de matalayay oo haday noqoto xiriirka caalamiga wasiirku de madaxweynuhu markuu madaxweynaha la kulmo hadii laga hadlayo arrimo gaashaandhig in marka ilaa